هذه الصحافة الوطن إنه عدل هو يعني هو كمان معلوماتي كده هذا كله وجه هذا الشاطر برضو إنه واحد بدل التعسيات صوبها كنا كلام قبلتي واحد أيها جدد وين الصحفيين الصوماليين أي النقطة هو الصحافة ورتي كفى ليستا أقوانت يجب إلى هسيرتي وذكره waxa ay tahay mas'uuliyadda koowaad in marka hore ay gutaan waajibaadkooda marka labaadna ay gutaan waajibaadka laga sugayay ah in ummadda iyo bulshada u tabiyaan baahiyaha kala duwan ay u qabaan dhaqankooda diintooda mas'uuliyintooda iyo dhaqaalahooda iyo runtii waxyaabaha noloshu ay qabto runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka awdal muddadii labada cisho ahayd halka tababarka ku jirnay sidii ay loo kala taagnaayeen runtii iyo sida ay loogu fureen maantana waxaan ku marti qaadnay maadaama uu kulankii muddada labada cisho ahaa uu maanta gebageba yahay in ay ka qayb qaataan in ay ina sugootiyaan isla markaana ay halkan inooga jeediyaan bal wixii ay naga fideen marka runtii aad samayso malaha gobolkii kusoo dulan hadalka gudoomiyaha ka mid ah fariin bay tahay arrinta maanta sooja ay halka suxufiyiinta ugu qabatay runtii waxaan doonaynaa inaanu maamulka iyo dadweynaha iyo bulshadaba tusno suxufiyiinta Soomaaliya in aan wax dhibaato ah ummadooda ku hayso runtiina sida la sheegay suxufiyiinta Soomaaliya dowladnimada waa hay'adihii ugu horeeyay ee hana qaaday Soomaaliya maanta marka la eego dhismaha dowladnimada maanta taaganahay oo runtii ragga maanta halkan joogay kan iyo suxufiyiinta Soomaaliya Faysal Maxamed Cabdiyo waa raggii udiga oo ahaa suxufiyiinta Soomaaliya inay qalinka u qabtaan isla markaana qaranimada Soomaaliya dhibada u taagaan gaarsiin dhawaaqa halka ugu dambeysay adduunyada taasoo aan isleeyahay Soomaaliya maanta waa ta gaarsiisay muddo 24 sano in ay u hayaan saxaafadda Soomaaliya inay bulshadooda iyo xukuumadooda iyo dadkooda daacad ugu shaqeeyaan runtii maanta waxaan filayaa soo jaahan in aan ku dadaali doono in aan halkii ka sii amaqaadno runtii oo muddada aan xilka haynana la doortay aan gaarsiin doono suxufiyiinta Soomaaliya halkii ay joogeen meel ka sareysa waxaan halkan idinku guddoonsiin doonaa shahaadooyin aan ugu talagalnay in aan idinku abaalmarino muddadii labada cisho ahayd u sabarteen u socdaasheen dhegaysateen casharadii halkan laga bixiyay runtii waan isleeyahay waa kuwa aynu maanta u baahannahay in aynu ku dabaqno mihnada aynu runtii oo maanta cabashooyin badan oo dhinaca xukuumadda iyo dhinaca dadweynuhu ay naga imanayaan runtii isla markaana inagu aynu halkan ku soo bandhignay mihnada saxaafadda aynu hayno shuruudaha u yaalla qaar badan oo ka mid inaynaan fulin taasina waa ta keenta dhaliilaha runtii laynoo soo jeedinayo marka waxaan idinku boorinayaa haddii ay noqoto xeerkii saxaafadda oo halkan laydinku qaybiyo runtii oo ah xeer muhiima in la dabaqo wixii halkan laynoogu dhigayo oo dhan waxaa lagu soo koobay xeerkaa suxufigu wuxuu xaq u leeyahayna xeerka ku jirta suxufiga waxaa xaq loogu leeyahayna xeerka ku jirta marka waa inay suxufiyiintu ku baraarugsanaadaan in ay dabaqaan waxa xaqa loogu leeyahay iyo wax iyagu xaq u leeyihiin xuuti waa uma baryeelaya laakiin waxaan leeyahay kuma filay tani halkaa nooga sii wado macallimiintan waxaan leeyahay aqoontii aad gudbiseeni waanu haynaa feedbackeeda runtii laakiin waxaan aad u jecelahay kullayba dee ardayda laftigoo marka ay ku jiraan jaamacadaha ama waxbarashada ku jiraan si wax uma wada fahmaan mid iyo laba hadday fahamkooga gaabiyo wax ka hadhinaan ilaahay aqoontaa loo sii kordhiyo aad iyo aadna waa mahadsantihiin waxaan u malaynayaa jaanis badan baa halkan ku jira runtii suxufiyiin badan oo gobollada ay ka howlgalaan maahine aanan ka soo gudbin baa jiro halkan maanta yimi suxufiyiin kale oo ah dadkii aynu hiigsanaynay oo yoonisi ay ka mid yihiin baa iyaguna halka yimi oo runtii jaanis ay idiin noqotay inaa halkan ku aragtaan oo awal ama BBC ka maqli jirteen ama meelaha muraadad ka daawan jirteen waxaan u malaynayaa aqoontani waa mid la doonayo inay tubta toosan idinku hagto waxna aad ku dhisi kartaan waxna aad ku toosin kartaan aad iyo aadna waa mahadsantihiin runtii xafladda bilowgeedii iyo dhammaadkeediiba waanu idinla joognay weliba anugu waxaan intaay dheeraa hal kalaas waa qaatay oo maanta markii loo dhigayay runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa aqoonta qiimaha badan ee laydiin soo gudbinayay maanta halkan wax badan oo laftigaygu aan ka faa'iidaystay ayaa jiray suxufiyiinta ka mid baan ahaa markaa maanta mar walbana runtii inay shaqadooda u madax bannaanaadaan mas-uuliyiinta ku dhaqanta anigoon isbaaninaynin ayaana inkastoo mararkii hore oo xadhiggaygu aad ugu badnaan jiray oo laakiin imika waxaad moodaa inaan meelaha qaarkood isaga gaadin run ahaantii
waxaan u arkaynaa inay ahayd uun aqoon darri waayo qofku ilaahay baa qofka bini aadamkaa karaameeyey bini aadam markuu inaga dhigay baynu karaamo yeelanay inaad karaamadii bini aadamka ka qaaddo maaha haddaad ka qaaddo adiguna karaamo heli maysa ka kaalay waddaniyad ka kaalay isku Soomaaliland ahaan ka kaalay isku gobol baatiin teeni qabiilka soo gal ibn aadam ilaahay karaameeya haddaad istiraado karaamadiisa waxyeel oo waxaanu ku jirin aad ka sheegto adigay ku tala adigay aakhiro bari marka godka yar lagu geliyo ayuun bay aroortay aanu intaas kula dardaarmay intaas suxufiyiinta waa inay ogaataan casharro fiican baa la siiyay aad bay u qiimo badnaayeen waxaana deer maanta aad ugu qoslay nin halkaa ka hadlayay yidhi suxufi ahaa daanu inta yarun baanu eeganaa tiibiyada nimankii lahaana lacag soo dirin bayna leeyihin marka ay yidhaahdaan intay odayaal meel iska soo fadhiistaan inay yidhaahdaan dowladda waxaanu kala noqonay taageeradii runtii waa waxaad haya inaad u sheegtaa inaanay taageero kala noqon karin ya ummadda inuu qof uun ka yahay ummaddaannan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool ee dhowrka milyan ee qofa inuu qof uun ka yahayo hadduu taageeradii inuu afkiisu iska xumeeyey suxufigana aanay ku wanaagsaneen ba inuu yidhaa waayo dee sharciba maaha waa dowladda soo doortay cod baynu ku keennay meesha hadday baarlaman tahay hadday madaxweynaha tahay hadday golaha deegaanka tahay taageero uu kala noqon karo meesha taale ma jirto marka xaggaana xaggii sharciyaddan idiin sheegaya inay dilday laftigiinu dadka ku soo dabaashaan oo aydan shilinka bahalaan niman kale eeganayaan wuxuu markay ganacsi noqdaan aanay ujeeddo kale ka dambaynina dhibaatooyinkaa runtii way leeyihiin waxaan halkan fariin uga dirayaa nimanka tiifiyada leh ee ka dhigtay iyagu hubka ka dhiganaya ee inamada yaryarna ku qasbaaya oo aan maanta halkan ka muuqan raggii tiifiyada iyo oo laga yaaba qaar website-da inay ku jiraan laakiin kuwa tiifiyada leh iyo kuwii jaraa'idka lahaa oo ku dagaalama oo dagaalkaa sidii sax ahayd ugu dagaalamaynin waxaan odhan lahaa isku xishooda wax iskula hadha kolay laba hablood baa ku jira bool marka si loo eego waa la sulugaa waxaa la 13 namood laba hablood ku jiraan halkaa isku dheelitirnaan baa ka maqan laakiin labadeeda hablood waxay ka tayo badan yihiin mararka qaarkood 13 kooda waayo gudoomiyuhu horta waa qofkii ugu aan odhan karo anigu waa qof hablaha aad u tixgeliya dhiirigelin siiya tayeeya kor u qaada hadda waa seminaarkii labaad anagoo guddiga haddana training uuna siiyo oo maxay la mid noqono sida wariyaasha kale intii aan anagu xilka hayni aan yeeshinin deenamadu ma helin fursadahaan helnay sidoo kale markasta wuxuu nagu dhiirigeliyaa shir kasta oo madax kasta kala qayb galaysa inaan garab taagnaano inamada looma yeedho anigiisiina baa barbarada ka socona marka labadeeda laakana qolo badan madaxa ruuxaano yeestaa badan marka waa filayaa in hablaha kalena ay nagu daydaan waliba dhiirigelin iyo hormood aan u nahay waliba maxamuud xataa iskuma dayo hablaha hadda training-ka fadhiya hargeysa ka yimid inuu isagu soo xulo ama meel kale ka imanaya wuxuu awood u siiya haddii hablo la soo xulayo kolba markaas telefonkeeda la helo inuu ku dhahdo hablaha loo baahan yahay idinku soo xula idinkaa yaqaaneen hablaha sida u kala baahi badan u baahan yihiin aqoontooda kor loo dhiso waa taasina waxaan odhan karaa fursad uu isaguna siiyey karaameyn uu siiyey allaha karaameeye maanta waan ku faraxsanahay hablo badanna inay annaga noo arkanna wax qabanayno insha allah waan rajeynaya wax qabad intaa ka badanna inaan la iman doono haddaan nahay soolja ahaan iyo weliba gaar ahaan daaliya seynaboo dhinaca gabdhaha inay wiilal badan la tartami doonaan oo golahan lagu arki doono insha allah waan rajeynaya idinkana waxaan idinkula dardaarmayaa training-ka aad qaadateen fursadda u hesheen qaar badan oo idinka mid weli way helin fursaddaas laakiin idinku nasiib baad u yeelateen oo waad heshaan faa'iido u leeyahay laakiin goormuu yeelanayaa waa marka aan inagu isku sheegno inaynu wax ka faa'iidnay anigu maanta haddaan iska indhatiro waxaan bartay ee waxba maan baran been baan qorayaasha macallin uu sheegay waa war kulul baan lahayn qaarna ilaahay waa hiit warkaas waa warkii ugu ciwaan kululaa horta taan ka tanaasulno waxaan taa ka hadhayaa eebaha laga buqo ilaahay iyadoon laga baqayn wariyaashu runtaas ma sheegaane ayaa la qorayaa maanta waxay reer hebel u shirayeen reer hebel maala jooga reer hebel
عبداسنا واحد كتجي كل معلمين الوضع دارمين ترى الله كبقنا بان كتجيا runtii kulankan waxa kuna wanaagsan wax badanna waanu ka faa'iidnay waanu rajaynaynaa in seminaara caynkan oo kalena halkaasi ay ka sii wado in anaguna noqon waano iyo nayl maxaa jiray baraaro habeen baa lagu seexdaan waxaan inaanu halkan kaga tagin baan insha Allah rajaynaynaa wada salaamina waqti gaaban awoodin waan mahadsantihiin mahad gaar ah kasoo waxaan ugu mahad celinayaa horta xubnaha sooca gudoomiyaha iyo agaasimaha waan ugu wada mahad celinayaa laakiin anigu mahad gaar ah ma hayaa Saynab iyo Xayaat sababtoo ah Hargeysa jooga baa la igu tababar soo bixinaysa baad ka qayb galaysaa waa saasana goor ugu bixisa waa markii ugu horeysan anigu Hargeysa fisad uga soo baxo waxaana nasiib u helay inaan markaan Hargeysa ka soo baxay goor ma imaado aanu imaado tababar aqooneed waa waxaan Ilaahay loogu mahad celiyo waan ugu wada mahad celinayaa Saynab Xayaat iyo gaar ahaan gudoomiyaha Ruutana waan mahad celinayaa